qaaday bukaanka hadda saddex shaybaar oo kala duwan ayaa si madax bannaan dhammaantood u xaqiijiyay natiijo qurac marka maadaama Navalny lagu soo daweeyay Ruushka dalkaasi waxa uu haystaa dhammaan macluumaadka iyo sambalada loo baahan yahay si loo tirso xaaladiisa alle Informationen und auch alle Proben die es für eine Analyse braucht. madaxa hay'adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michelle Bachelet ayaa ku baaqday in eedeymaha loo jeedinay laamaha ammaanka waddanka Belarus ay tahay in la baaro. Bachelet waxa kale oo ay sheegtay in ay jiraan warar lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in awood xad dhaaf ay adeegsadeen laamaha ammaanka ee waddankaasi sidoo kalena tacdiyo galmo loo geystay qaar ka mid ah dadkii dibad baxayay. waxay sidoo kale cambaaraysay abduubka loo geystay mucaaradka waddankaasi iyo wariyaal la dhibaateeyay. madaxweynaha waddanka Belarus Alexander Lukashenko ayaa gaaray waddanka Ruushka halkaasi uu kulamo kula leeyahay dhigiisa waddanka Ruushka Vladimir Putin. wadahadalladii ugu horreeyay foolka fool ay dhexmara labada dhinac markii rabshadaha ay ka bilowday waddankaasi Belarus. hogaamiyaha Ruushka oo loo arkay inuu garab u yahay Lukashenko ayaa sheegay in dalkiisa uu heegan buuxo ugu jira sidii uu soo faragelin lahaa xiisada ka taagan waddanka ay dariska yihiin. ninka hogaamin doona dalka Japan ayaa ballan qaaday inuu si ambaqaadi doono siyaasadihii uu dalkaasi ku maamulayay Razaare Shinzo Abe oo xilka isaga casilay sababa caafimaad awgeed. xisbiga talada haya ee waddanka Japan ayaa madaxa golaha wasiirada ee dalkaasi Yoshihide Suga u xushay inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee bedeli doona Razaare Abe. ansixinta xilka loo dhiibay ayaa waxa go'aan ka gaari doona xildhibaanada baarlamaanka ee waddankaasi Japan. Mr. Sugo oo lagu yaqaanay nin daacad u ahaa Abe ayaa xilkan la wareegayay xilli hoos u dhac dhaqaale uu ka jiray waddankaasi Japan. tobanaan caruur oo dhiganaysa iskool ku yaala waddanka Tanzania ayaa ku dhintay qolal ay deganaayeen oo dabka kacay. dhammaan caruurta dhintay oo wax wiilal ayaa waxa la sheegay in dabkaasi ay sidoo kale ku dhaawacmeen caruur kale oo da'doodu u dhaxayso 6 ilaa 10 kuwaas oo haatan lagu dabaybayo cisbitaalada. booliska waddanka Tanzania waxay sheegeen in ilaa hadda aan la garanayn sababta keentay dabka qabsaday iskoolkan oo ku yaala waqooyiga galbeed ee waddanka Tanzania. dabkan ka kacay iskoolada ayaa inta badan caadi ka ah waddanka Tanzania oo waxa dhacdada mid lamid ah toddobaadyo ka hor ku gubtay caruur 3 markaas sigaaraysa oo dhiganaysa iskoolka. ugu dambeyn natiijada laga helay doorashada deegaanka deegaanada hoose ee waddanka Ruushka waxay muujinaysaa in xisbiga talada haya ee dalka Ruushka uu guul ka gaaray doorashada. sidoo kale waxa halkii ay joogeen sare uga kacay mucaaradka waddanka Ruushka ilaa haatan waxa la sheegayaa in tiranta codadka doorashada ay ka socota qaybo ka mid ah waddankaasi Ruushka. doorashadan ayaa dhacday xilli dalkaasi ay ka taagan yihiin su'aalo badan oo la xiriira sida dawladda waddankaasi u maareysay fayraska corona. warkii caalamkana waa nagata Cabdirsan Bashiir Maxamed Caato aad baad u mahadsantahay.